waxay kulankaasi ku yimid madaxweynaha iyo wafdigiisa iyo annagu waxaanu wada deganayn hal meel qasri ayaanu wada deganayn masaajid ayaanu isku aragnay aniga iyo wasiirada kaleeto oo dowladda federaalka ka socday ayaa u tegay madaxweynaha oo salaamay iyo wafdigiisa isaguna si qurux badan oo soomaalinimada walaalo isu soo hiloobay ayuu noo soo dhaweeyey oo sharafka ku jirta waanu isa salaaminay waa ismarxaadaynay kabacdina meelaha muslimiintu ay tagaan oo dhan ayaanu isku adkaynay sida carafaad iyo mina iyo meelahaas waan la fadhiisanay waanu salaamay waxaanu noo muujinay inaanu nahay dad walaalo ah oo dee isu soo hiloobay salaantaas muslimiinta oo dhan udhaxaysa annaguna dad walaalaha isaga sii dhow aanu nahay oo keliya ayaa madax martay waxaan arkayay dad soomaaliyeed oo meelo kala duwan jooga oo siyaasadeynayay siyaasad shughul kuma lahayn kama aanaan wada hadlin wax gaara oo la xiriira siyaasad maxaa yeelay madaxweynahooda waa xajeeyey annaguna waa xajeeynay iyo weydigiisi annaguna ma aanaan haysan tafwiid ama ma aanaan haysan fasax inaanu arrimaha soomaaliya iyo somaliland aan ka hadasho xas baanu nimid laakiin markaanu ku aragnay walaalka iyo madaxweynaha somaliland waanu tagnay waanu salaam maxaa wuu bedeli karaa runtii aad baanu anagu ugu faraxnay oo dee ismaanaan aqoonin madaxweynaha soomaalidu war meelahaas laisuu tabiye iyo shaki iyo sihir iyo waxyaabo le maaragtay onbay maaragtay isku geegsadaan laakiin markaanu madaxweynaha iyo wafdigiisa la kulanay dad soomaaliyeed oo maaragtay aan uqduuc qabin oo aad maaragtay siyaasadooda waxay tahayba laakiin dad sharaf leh oo qalbi fiican oo waji furan oo la soo dhaweeyey oo salaantii aan uga tagnay si fiican usoo dhaweeyo lagu qaabilay ayay ahaayeen marka waxaan rajaynaynaa in على الأقل أنت ولا حد الله تدري بلان بيان إلى أن نمارس المحل هناك بس مستعال بس معلومة كده أنا بقول حد صعب بيني بالحوالها هذا هو حد ما مكة السلام اللي مكة السلام وحد بيننا دولة الصومالية الفدرالية وقابلوا من الحوالي فرماتشو ريزولار حسن على خازق هي أجنحة دلها الجهود بعملها كده ولو نقول شهر دولة الصومالية والسودان بجد شنو يكون شنو لو كانوا الله هاي فرمركو ولا كده الجميل هذا يخيركو سمعت من حولها وأشياء مركان السلام انت أصلا كل كلمة وأنا كفر أحسن لنا من حولها اللي يجب